الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حمدا لله. إلهي بانكم هذينينا صلاة الظهر جماعة naga soo qayb galiyay culimada masaajidka ayaa naga dalabtay kelmad inaan sheegno. salaadii duhur markaan ka baxnayna kulligeen wacdi baa laynoo jeediyay haddaan wax ku qaadanayno, wacdi dhammaystiran. wacdigaasi muxuu ahaa? janaazaan ku tukannay, salaat aljanaaza xaadira. qof walaalkeena ayaa meydkiisii intoo la soo geliyey halkaa aan ku tukannay, deedna waa la qaaday. kafaa bilmowti waacida. waana waxa kugu filan waa geerida. wacdi waxaa kugu filan waa meydkaa aad arkaysid. اغدوا فإنا راحون أو روحوا فإنا غادون، موعظة بليغة وغفلة سريعة، يذهب الأول فالأول ويبقى الآخر لا حلم له. أبو ذر الغفاري الله رالي كالنقضي أيا جنازة مركب ميت وأركبه أرنجري لا عرابة أنا كنا واكسو دبك الليه دونا أما لك الله أبو أرنجري أنا كنا قلبت وما كذب إيمان دوناي وكسو دبا عرابي دوناي. موعدة بليغة وأنا حال درويان وغفلة سريعة. هذا كنت لقلنا جيرد ويكون إيمان إيسا. يذهب الأول فالأول مدك وكهر ريب وآخرة وكهر رينيا. أجل بالله دينتا حنون الله مردينتو، قاجنا الله مردينتو، حبنا الله مردينتو، وحلو دمنا وأجل ويان وأجل. لن تموت نفس حتى تستكمل آخر رزقها. نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها نفنا ما دمانيسو أدوية كبح ميسو إلا أرزاق ديدا إنت أدن بيسيد دميسترة مويان. meydka aan ku tukannay baa inoogu filan wacdi haddaan dadku ay wax ku qaadanayaan maanta. waa la socdaa. xagee loo socdaa? meeshii runta ahayd baa loo socdaa, meeshii runta ahayd. kullu nafsin daa'iqatu lmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamah faman zuxzixa can الnaari waudkhila اljannata faqad faaz wama alxayaaةu اddunya ilaa mataacu اlguruur. ilaahay baa inoo sheegay naf walba geerida way dhadhamin baa ilaahay yidhi, way dhadhamin.
waxaad duubaysaan iska daayo dhegaysta ha ciyaaloobina halkan wacdi waayaan waxa laga hadlaya waa wacdi waxa lagugu baraarujinaya waa aakhiradaadii waxa lagugu baraarujinaya waa hadafkii adduunyada lagu keenay waxa lagu sheegaya lagu tilmaamaya waa meesha aad u socotay runta ahayd weeyaan marka qalbi wax weelay Allah ina siiyo naf walba baa ilaahay leeyahay geerida way dhadhamin camalkaada adduunyada ku soo shaqaysayna aakhira laynaga abaal marin doonaa halkan wixii adduunyada aad ku hadlaysay waa la qoraayay waxaad samaynaysay waa la qoraayay maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid bini aadanka afkiisa hadal kama soo dhaco ilaa waa la qorayaa wawudica alkitaabu wajii'a biاnnabiyiina waashuhadaa maalinka qiyaamaha kitaabka la soo dhigi doonaa kitaabka maxaa ku qoran maalintii aad qaan gaadhay ilaa naftu ay kaa baxaysay wixii aad eegaysay wixii aad cuntay waxaad ku hadlaysay waxaad dhegaysanaysay meeshaad tagtay saad u socotay wixii oo dhan baa lagu soo qorayaa lagu hordhigi doona qiyaamaha iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba ilaahay baa ku odhan doonaa addoonkan oo kitaabkaaga adigu akhriso halka ula baxo adigu akhriso adigaana isku filana cid ku xisaabisaba uma baahnide adiga un baa miisaanka isa saaraya oo isa soo caddayni doonaa ma naar baad u qalantaa mise jannaad u qalantaa faman zuxzixa cani الnaari waudkhila aljannata faqad faaz ilaahay baa yidhi qofka naar laga badbaadiyey ee janno la geliyey kaasaa liibaane baa ilaahay yidhi xaqiiqadii kaasaa liibaane naar allah inaga badbaadiso aamin dhahada jannadana allah ina geliyo allahu akbar daci alayaama tafcalu ma tashaa waطib nafsa ida xakama alqaضاء walaa tajzac lixaadiثaة اllayaali fama lixawaadiث الdunya baqaء maalin baa iman habeen baa iman kulayl baa iman qabow baa iman nolol baa iman geeri baa iman cabsi baa iman nabadgelyaa iman faqri baa iman barwaaqaa iman waa nidaam ilaahay adduunyada ugu talagalay waxaas in mar cabsi timaaddaa mar barwaaqa timaaddaa mar nabad la helaa mar la bukoodaa mar la caafimaadaa mar la dhashaa mar la dhintaa ini ay dhalataa ina ay dhimataa ini fuqaro noqotaa in aghniye noqotaa undur kayfa fadalnaa bacdahum calaa bacdin walalaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila eeg baa lagu leeyahay bini aadanka saan u kala sarraysiinay laakiin waxaa fadli badan baa ilaahay yidhi aakhiro darajaadka aakhira ninka hele baa fadli weyn helay walaalayaal daar alimtixaan baan ku jirnaa maxaan ku jirnaa daar alikhtibaar marka nolosha ilaahay baa kugu deeqay dhimashadana ilaahay baa kugu xakumay ogow meeshaad doontana joog waa dhiman maalintii lagu qoray inaad dhimato unbaad dhiman 120 habeen caloosha hooyo ilmuhu markuu ku jiraa malag loo soo dhiibaa ruuxda markaasuu ku afuufaa markaasuu malagaasi 4 buu u qoraa buu nebigu yidhi 4 buu qorayaa qofka ma labbaa ma dhidig baa habeenkaabaa la qori buu rasuulku yidhi ma shaqi naar ku dambaynaya mise waa siciid janno galaya habeenkaabaa la qori buu rasuulku yidhi fama risqu adduunka intuu joogo muxuu quudkiisu noqonaya habeenkaabaa la qori fama alajalu halkuu ku dhimanoo halkee lagu duugi habeenkaasaa la qoraa buu rasuulku yidhi marka waa dhimashaad u dhalatay waa inaad tidhaahdaa aniga haddaan dhinto ma rabbigay oo iga raallayaan dhimanaya mise ilaahay oo ii cadhoonayaan dhimanaya nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam siiradiisa noloshiisa oo dhan waxaan ka fahmaynaa meesha muuminku adduunyadu maaha meesha muuminku ku raaxaysanayo muuminku meeshuu ku raaxaysanaya waa jannada weeyaan meeshuu muuminku ku raaxaysanaya waa jannada الدنيا سجن المؤمن
وجنة الكافر بالنبي قولي الدنيا نيكا مؤمنك الجيل بيوتها الجيل نيكا الجيل كجرا اختيار ملك حرية ما هيستو لكن نيكا الجيل كجرا هم يجيس وين وامحي قور ما جيلك اللي يجيس يدين دونا قور ما جيلك كبحا dadka jeelasha ku jira hami kala ma leh tijaarad ku hamini maayaan oo guri dhismihiisa ku hamini maayaan oo ganacsi ku hamini maayaan oo dhoof iyo guur ku hamini maayaan hamiga ugu weyn qofka jeel ku xidhan waa goorma jeelka ka baxa uu saadarteed buu nabigu leeyahay adduunyada muuminka waa jeelkiisi waa jeel maxaa loo jeedaa adduunka inta qofka muuminka uu joogo معناها حريتيسي sidoo doona uma socon karayo waxa uu adduunyadan doona inuu ku sameeyo ma sameyn karayo waayo shariicad buu qofka muuminka leeyahay shariicad oo arag ilaahay baa ku siiyay hadana aragaaga awaamir buu leeyahay awaamir araga awaamirtu leeyahay waa maxay waxa eeg baa laga yiri waxaan hayeegin ba shariicadu ku leedahay arabka ilaahay baa ku siiyay shariicadu waxay ku leedahay waxa ku hadal waxaan ku hadlin bay ku leedahay maqalka ilaahay baa ku siiyay shariicadu waxay ku leedahay waxa maqal waxaan maqlin bay ku leedahay caloosha ilaahay baa ku siiyay waxaasi waa xalaal cun bay ku leedahay shariicadu waxaana waa xaraan cunin bay ku leedahay socodka ilaahay baa ku siiyay shariicadu sidaa u socobay ku leedahay sidaana ha u socon bay shariicadu ku leedahay wala tamshi fil ardi maraha sidaa mutakabbiriinta ha u socon شريعتها كلها سيدي أسعوا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام بابا إلهي سيدي مؤمنين تسعنا واسدي بالغفلة دي معصية لقوها يهدي صومران أيكم ماموسا وكرامي سبع دافان با إلهي شقا كو درسان معيان وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أحكامت عنده إليه إليك بصرك وأحكام بلي أحكام دي سوا محي وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مسكيت قد حديد ماها وحا قضوا البصر كلا قاعد دون يو مساجد قد بدا مرقاد وقب بحدا الله دون عندها قينا اللابت وحي محرمات إلهي كحرمي أردن عندها كو إيجن لكن عندها محاكو إيج لقايري أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج صمدا كو اقبل لغايدي او آيات كان إلهي كو ايغو إلهي كو قرو سيدا قيل إلهي أبو رفيري سيدا بورها إلهي أبو رفيري سيدا بد الله أبو رفيري سيدا عرك الله جوجي فيري سيدا مخلوق الله أبو رفيري آيات كان إلهي كو اقبل لغايدو عبرو ايغ موياني عندها كان أذيكم ملي هيدا واحد وانتنات كو ايغ تحر أمتي كان مؤمنكي مغلكي بين نقطتين إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا والله يسوي دين دونا مغلكي ولا قويدين وأرقي ولا قويدين ما لك قيامة قفل والله ورسل دونا فبشر عباد الذين يستمعون القول بايلهد يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذا الكوناك سنة مقشان لغو جديي فعل كوناك سنة شريعة وقشان هذا رعدا لغو جديي هذا الكحونة شريعة وإنكرتين أدكت هذا كله قيستنا لغو موقل لكن إنك وحان لنا ما أنت اختيار بان له خاصة اللي يردين مركات هذا روحها هذا قيسن وروحنا داونا شريعة ما أقول اختيار بان له اختيار بان له مالك القيامة وحاتر على إلهي وأنه اختيار بان له هذا حكم بدبادسي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون من هم؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين اللهم اجعلنا آمين هذا يا عبادي
banka qiyaama maalinta la joogo ee qof walba gargaar iyo gurmad uu sugayo ayaa xagga ilaahay waxa ka iman doona iclaan ogeysiis oo la oran doona yaa cibaadi adoomahaygiyo laa khawfun calaykum alyawma walaa antum taxzanuun maanta ininka korkiin cabsi iyo murug midna ma saarno allah inaga dhiga kuwaas maalintee waa maalinka banka qiyaama la joogo يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وحير ما أنت ضدك أدون قرن كي يبيوك قيلسي بنك قيامة كورما مالك قيامها كورما حالده سينو قدون تعالى maalinka qofku gargaar uu baahan yahay gurmad uu baahan yahay ayaa xagga sare iclaan baa ka imanaya oo la oranaya adoomihii ilaahay maanta iyaga dushooda cabsiyo murugi ma saarno man hum wa kuwe alladina aamanu biaayatina wa kanu muslimiin wa kuwi adduunyada markay joogeen ilaahay bay rumaysnaayeen aayaadka ilaahay bay rumaysnaayeen janna inay jirtay garanayeen naar inay jirtay garanayeen xisaab inay dambaysay garanayeen imtixaanka adduunka inuu dhammaanayay garanayeen laakiin imtixaanka runtu aakhire inuu dhacaya bay garanayeen dadna adduunyadii bay ka soo sahay qaateen ilaahay bay soo raali geliyeen kuwa muslimiin oo toosan bay ahaayeenoo ilaahay u hoggaansan bay ahaayeen maxaa markaa lagu odhan doonaa udkhuluu ljannata antum waaswaajukum tuxbaruun yutaafu calayhim bisaxaafin min dahabin waakwaabin wafiiha maa tashtahiihi alanfus wataladu alacyunu waantum fiiha khaaliduun jannadaa loogu baaqayaa ayaa kaloo odhan doonaa ininka maanta kuwa cabsoonaya ininka maaha waayo adduunkii baad ilaahay ka soo cabsateen ininka abaalkiinu maanta waa janno allah inaga dhiga kuwaas quluu amiin dhahada adduunyadan waa daaru tacab baan joognaa daarulcanaa daarulibtixaan weeyaan adduunyadu waa imtixaan mar waa cabsi mar waa geeri mar waa bugtaan mar waa faqri mar waa abaar mar waa barwaaqo mar waad farxi mar waad murugoon daci اlayaama tafcalu ma tashaa waطib nafsa idaa xakama alqaضاء walaa tajzac lixaadiثaة اllayaali fama lixawaadiث اdunya baqaa'u maalmahan adduunyada ee axwaashu ay la socoto ha eegin ha argagixine adu waxaad haysataa ilaahay xadhigiisa hayso amarka ilaahay hayso sunnaha nebi maxamed hayso inaad dhimato ayaad u dhalatee inaad noolaato uma dhalan jannadaadii halkan maaha qofka muuminka jannadiisu aakhiro weeyaan wixii ilaahay ku keenana ku raalli noqo ka faqriga loo qadaray faqrigiisu waa inuu ku raalli noqdaa ka caafimaadka la siiyey caafimaadka waa inuu ku raalli noqdaa ka awlaadda la siiyey awlaadda ilaahay waa inuu ugu shukriyaa ka awlaadda laga qabtay awlaad la'aanta waa inuu ilaahay ugu shukriyaa ka nabadgelyada la siiyey nabadgelyada waa ilaahay inuu ku gartaa ka cabsida lagu imtixaamay cabsida waa inaad ilaahay kaga cabsataa ka mas-uulka laga dhigay mas-uuliyadda ilaahay waa inuu kaga baqaa ka mas-uulka laga yahayna marxaladdaad ku jirta adiguna ilaahay ku garoo kaga baq bas noloshan adduunyadu wax daa'imaysa ma aha mayd baan ku tukannay beritoole innakana waa laynagu tukan ogow marka jannadeenni halkan ma aha jannadeennu way dambaysaa ilaahay baan adduunka dusheeda ku caabudaynaa ku adeecaynaa ku raalli gelinaynaa wixii ilaahay noo qadarana raalli baan ku noqonaynaa insha allah dhahada waxaa keliya mashaakilka adduunyada maanta ka dhacaaya mashaakilka adduunyada ka dhici jiray mashaakilka adduunyada ka dhici doona xalku waa sunnihii nebigeenna moxamed calayhi salaatu wassalaam maanta zamankan aan joogno dad aan islaamnimada xataa aan loo malaynayn inay islaamayaan qaarkood waxay ku islaamayaan xadiidkii nebigeennu uu yidhi haddaad maqashaan meesha taacuun baa ka dhacayna ha gelina meelaad joogtaan hadduu taacuun ka dhacana buu nebigu yidhi ha ka bixina dadkii zamankan culumta maadiga yaqaana waxay leeyihiin 1400 sano ka hor ma nebi maxamed hadalkuu ku hadlay ayuu maanta caalamka ku dhaqmaya oo ku camal falaya mutacalimiintii yurub ugu aqoonta badnaa axaadiista nebigeenna markii loo sheegay bay ku islaameen
xanuunkan maanta adduunka lagu sheegayo ilaahay hay naga ilaaliyo aamin dhahada insha Allah dalkeena ilaahay noo keeni maayo insha Allah dhahada insha Allah dhahada wala reejibuuti ay la soo hadlayso muqdisho ka warano waxa muqdisho 30 sano imtixaan ku soo jireeno imtixaankan maanta adduunyada ka dhacaya insha Allah ilaahay iyaka uu ka ilaalin insha Allah dhahada muslimiinta oo dhan Allah ka ilaaliyo aamin dhahada wa caalamka oo dhan Allah ka qaado aamin dhahada laana waa balaayo haday timaado cid walba way saameyn kartaa Allah inaga ilaaliyo halkan soconay marka xukun القضاء والقدر وهلك مسلم يقال كوكو كلا وعدان مسلم كواحد لدونا يا وحي إلهي كيني رالي ما كنا قضاء أذو قدرك إلهي آمنسن ووحي إلهي كوكينا كرا ليا هذا دينتي أنه وحي قبتا قفك بني آدم كوين والله ماذا احتياط وكان النبي قال إنه شيء إليه meesha taacun baa ka dhacay hadaan maqashaana hagelina meesha joogtaan haduu taacun ka dhacan ha ka soo bixina rasuulku yiri mutaalimiintii reer Yurub qaarkood xadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam bay ku islaamayaan ay leeyihiin 1400 sano ka hor ninka hadallada ku hadlayay ee maanta xadiiskii uu 1400 sano ka hor uu sheegay caalamku u arkay xalka kaliya ee xanuunka maanta la sheegay lagaga badbaadi karo والله وحيد هذا النقاس النبي بوهاي بشر عادي ما هي أشهد أن محمدا هل قبل له الإسلام يا مانتا فرح الكبا للي فرحها مسكنا قمر والله هذا دتك وشيء يا وزارتها عافماتكو لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابتي سوحوا كيري هبين قمر قد هردودا كسو كعدان وحوه الريال قبطان هنقو بقعمين نقضب رسولكو يري وهي حالي تولي قاعد دينو ميلا يبرد كما ورقبتاني من صحابة اللفرديو مسلمين تكمدها أي قلبك كيري هذا كان النبي هو اسكيريون من با كور قبن قاعدين سماشي حالي بريدي لكن هذا ما ينكرين عربك كما ينكرين لكن قلبك أيو يري من با كور قبن ماشي قاعدين حالي بريدي هبينكي مركو سيحدي واقي مركو بريانيكو قيلي على الارك قيلي آيا وعباد آيا ولا دول تغي وحلو يمد اسقو غعنتيسي دبرك انتا كولا جرا تيسي markaas laga soo jiiday markaas uu walaalayaal hadaad maqashaan nabi maxamed baa sida yiri samicna wa ata'na dhahada wadi nabigu wuxuu sheegay waa run weeyaan hada caalamka waxa uu leeyahay gacmaha dhaqda oo cadayda oo wajiga dhaqda oo biyo ku istinjooda oo nadaafada ilaaliya nabigeena maxamed alayhi salatu wasalaam waxa soo dhanba nabigu waxa uu nooga dhigay inaga waxa uu nooga dhigay shariicad buu nooga dhigay hadaad cuntada cunaysaan waxa sunnah in gacmaha biyo kor ka yimid lagu dhaqo hadaad cunto cunaysid waxa hadigi nabigeena kamida in saddexda farood lagu cuno hadaad saddexda kareyna shanta ku cun margaabuu nabigu yiri gacanta markaad cuntada ku cuntaan sida uga leefleef buu nabigu uga leefleef معايا لجيرك بن آدم الدفاع با إلهي قال الدفاع حنون والبكاء إلى لنا بيه باتكم مردته والدفاع باتك هليسا دريرك جيرك كسو بحي والدفاع ويان بسنك هذو قبتي بسنك دنب الدفاع عنتدي جرمسك كلا هنايا عنتدي ويلك هذو حكو عنيسو أقلده هبينك مركات سيحانيسا ويلشينا جنبيه بو نبي يري أما ماركتاني دبولا وحسارة هذا هذو حسارتان ويدان بو نبي يري قري يرسوق هذا مرة قل يرعود صار ابو رسولكم وصلنا اقل با النبي قال لوgu sheegay reer Madiina aqalkiiba ku gubtaa la yiri wuxuu habeenkii markaad seexanaysaan dabkaasi waadowgii niye iska damiyay buu rasuulku yiri waa hadigii nabigeena kaleey salaatu wasalaam nolosha nabi maxamed uu noola yimiday oo dhan waa nolol adiga ku ilaalinaysa caafimaadkaaga ilaalinaysa diintaada ilaalinaysa waxa uu nabigu noo jiday xataa marka la jiifsanayo dhinaca midigii loo jiifto soo sadama Aisha radiyallahu anha wa titri nabigu gacanta midig buu dhinaca saari jiray dana ducada buu akhrisan jiray Allahumma qini adabaka yawma tab'athu ibadaka dhakhtarado dhan waxa ay leeyihiin qalbiga bini aadamka wadnuhu xagga bidix buu ku yaalaa ha u seexanine xagga midig u seexda xagga midig qofka u seexda caafimaadkiisa qofkaas rajo fiican buu leeyahay
hadday cilmigooga aalaadkan maanta ay samaysteen ayay ku arkayaan walaakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cilmi alwaxyi ayuu nebigu noogu sheegayaa in habeenkii marka la jiibsanayna xagga midigta loo jiibsado markuu hurdada ka soo kacana waxa u horreeyuu nebigu qaadi jiray waa maxay waa cadaygiisa cadaygu nebigu sidaa u qabsan jiray xataa maalintuu dhimanayey caaisha u dhiibay cadaygii uhi ii jilci buu ka yidhi afkana ii geli buu ka yidhi cadaygu muxuu laynayaa jeermiska jirhkaaga geli lahaa ama ka soo bixi lahaa buu laynayaa diin dhammaystiran ayaa ilaahay noo soo dejiyey inaan diinteennaa qaadanno ku camal falno oon barannoon ummaddeenna barnoon ka shaqayno taasuunba laynooga baahan yahay bas insha allah dhahda sow diyaar uma nihin inuu diinta barto uu diinta ku camal falo uu diinta ummadda gaadhsiiye ayaa u diyaara saddexdaas dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mawtaadkeenna allah u naxariisto amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo muslimiinta meelay joogaanba ciriiriga allaha ka qaado colaaddana allah inaga rafaco xanuunnada la sheegayna allah inaga ilaaliyo dadku ku dhacayna allaha ka caafiyo dadka u dhintee muslimnimada ku dhintana allaha u naxariisto gaaladana ilaaha waa addoommahaagii waa ducafaa waa masaakiine intii hidaayadda aad ugu tala gasheen ilaahu soo hadee wixii sharlana sharkiisa ilaahu naga qabo sala allahu calaa sayidina muxamed